السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والاليال وانيغا markale idinku soo noqday sidii caadada inoo hayna muuqaal cusub idin la wadaagiya muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay riwaayadan la daaray ee socota ee xeer Ciise la geeyay UNESCO la leeyahay in joogsanayn ila dabaldegayo ummadii oo gaajoonaysa ummadii oo barakaca ummadii oo dhibaatoonaysa ummadii oo silic ku nool ummadii oo cabsi iyo maxaan ku rahdaa aga jugleen ku hoos nool Ciise meel kastuu joogo u dulaysan yahay marka raggii sababay waxa raggii nafci ka raadiyay ee ku dul noolaa ama ka deefayay dhibaatadan Ciise ku jiro ayaa maanta la kula UNESCO xaflad u sameynaya war ragga xasaasiyada ka qaada wa xasaasiyad bay ka qaadaan ba Ciise nimaad maqlaan haddii laba qof oo walaalo Ciise oo wada qosdaayo oo meel wada fadhiyo kaafi ama bun wada cabay hadii arkaan wayba sooxaanba sidee u suuragal noqotay isku arki karaan ma ana ii qorsheynayaan ana ii fikirayaan taas ka dhaadhacsan in ay dhibaato ummadan ku hayaan si ay u xakameeyaan markaas kuwa kale cawaan ah oo calooshoodu shaqaystooyina oo iimaan laawayaal ah ay hoos boodayaan oo inta uu Ciise nimadan xafladahan ma taqaana la jiboonayo ayay dhaaf ka raadinayaan kuwaasina markaas la leeyahay Ciise nimo iyo xeer baa jira war xeerna ma jiro wala mid ilaahi baa la dabaqaa wala mid bani aadam sameeyay idinku hadlaysiin mid la adeegsado oo la dabaqaa ma jirto tii diintana waan ka tagnay tii xeer sameeysanina waan ka tagnay xoolaha waxba ma dhaano haddaan xoolo wax dhaano ma ninkana dilayo ayaan hor boodi lahaa Ciise nimo nagu dilaya ayaa maanta kale Ciise nimo nagu nooleen muxuu nagu nooleeyaa wax xaflada yirijaad ka yaro bixinay iyo dadka boodbooday iyo is intaan ma inta baa la rabaade habla soo barakacay dumar beesha Ciise awradii dhagax laga guro oo maxaan ku raaqar ku naasaha la googooyo oo maxaan ku raada ubad yar yar baa la dooxayo meedkiiba wali yaala wadooyinka ay 10 sano dagaal socday ay markaasaad ku leedihiin hadda ila imika ayuu wada barakac oo Djibouti dhexdeedu ka dhex wada dadkii deegaanka haleynaya oo barakac ku wada u dhabar ka tooganaya hal doorkii beesha Ciise Djibouti ku noolaa gaar ahaan kuwa deegaanka ayuu leynaya Ethiopia saasoo kale wada Somaliland saasoo kale wada meel kastuu Ciise joogo inuu neefsado ma rabo isaga wuxuu rabaa inuu kontrolo inuu xakameeyo ayuu rabaa neeftooda Ciise ma neefsan karo ila aniga ay hoos yimaado adiga ma ilaahay baa ku doortay ilaahay ma he sheedaan baa ku doortay sheedaanna wad caabudaa ilaahagana waa ka tagtay Ismaaciil Umar Geelow waana ku ognahay inaad dir rabana tageen waxba suuqa aydaad iyo cayaankaaga aad adeegsato ay waxba dadka inay ka dhaadhicina waalin dir rabo imanaya Ismaaciilo xafladan xeerka Ciise war Ismaaciil Umar Geelow xeer Ciise ma baahno Ciise nimo ma aaminsanaba ninkani ducana inna kama rabo xoogiisa iyo maalka iyo hantida Djibouti ay ku jooga Djibouti ila intuu dhimanayno ka tagaa ma doonayo marka ummadda beenta laga daayo shacabka beesha Ciise la hadlay war idinku xoolaatihiin markastaba li horboodayo goormad baraarugaysiin hurda ka kacaysiin reer walba waa inuu oday dhaqameedkooga qabto way waa in guriga ugaaska loo wada cidlayo waa in ganda la samaysto sidoo ninna dilaayo ganda nagu sameyn sidee uu ninna dilaayo oo Ciise nimo nagu dilaayo oo oran ana nin Ciise nimo iyo midnimo ni keenaya ninka dhibaatadeena ka dheefa ku nool ku faraxsan ka lacageeya noqon maayo ninka mideynaya beesha Ciise xasaasiyad buu ka qaadaaba in hore idinku sheegay uu suuxa markuu arko dad mida oo isku nool saad idinku isku iman oo wax u sameeysan ayuu isagu idinka horeynaya waxa la yiraahdaa la meilleure défense c'est l'attaque weerar bay idinku qaadaya meel kastuu idinka horeynaya oo idii baahaya mushkiladooyin iyo dhibaatooyin meel kasta idii abuuraya sidoo khalkhal idin geliyo oo u helin waqti aad wada shuuraysataan oo wada fadhiisataan oo darihiina aad ka fikirtaan marka rag baa xeerkan Ciise sameeyay ragna way dabaqeen oo way hirgeliyeen way reinforceen oo way xoojiyeen xeerkii raggii baa loo baahan yahay ragnimay doontay raganimo ninkani gacmuhu dhig la galay gaal buu u adeegaa sheedaan buu caabudaa waa in sidiisoo kale loo qastaa hadii la rabo ma ay tiri waa meesha taala Allahumma hal balaqtu